بسم الله الحمد لله وحرب halkan inaan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii dalka Soomaaliya maanta wuxuu marayaa meeshii ugu fiicneed runtii dowladda Soomaaliya waxa weeye amniga magaalada Muqdisho waa sugan yahay maamul goboleedyada waa uu sugan yahay runtii horumarka arrimaha dibadda dowladdu si fiican bay uga soo shaqaysay runtii waxay gaartay guulo waaweyn ay ka mid yihiin din cafintii ay ka mid tahay ururka bariga Afrika ganacsiga cunaqabatayntii hubka golihii ammaanka runtii siyaasadihii isdiidanaa ee Soomaaliya iyo Itoobiya runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Culusow runtii si fiican ayuu u wajahay iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo golihiisa wasiirada ay ka mid yihiin arrimaha dibadda raggii soo maray runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu soo hooyay guulo aad iyo aad u weyn waana ciidan dhisan moral ahaan iyo awood ahaan iyo qalab ahaan tayeysan runtiina difaaci kara sharafta karaamada dhiigga ummadda Soomaaliyeed runtii waxaa mahad iska leh ilaahay weyn waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo ciidamada booliiska Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda dhammaan hay'adaha garsoorka hadday yihiin kuwa maaragtay maxkamadaha iyo maxkamadda ciidanka qalabka sida iyo maaragtay ragga la shaqeeyo oo xeer ilaalinta ah ama dacwooyinka u soo diyaariya dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen runtii garsoorka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa sirdoonka Soomaaliya oo runtii guulo ka soo hooyay sira waaweyn ama dibadda ha noqoto ama gudaha ha noqoto runtii waxa weeye wax looga mahadiyo weeyaan qofkuna waxa uu qabto wanaaga waa in lagu sharfaa runtii waxay mudan yihiin ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha garsoorka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in la amaano la garab istaago runtii mushaarka loo kordhiyo baarlamaanka Soomaaliya oo runtii ah baarlamaankii ugu wanaagsanaa Soomaaliya soo mara hay'ado weyn oo dastuuriya dhisay sharciyo adag baas mareeyay oo ka mid yahay doorashooyinka qof iyo cod runtii madaxweyne walba Soomaaliyeed ama xukun u haqal taagaya ama musharax madaxweyne waxa ka mid ah qodbooyinkiisa waa ay duuban yihiin waxaan wadankan ku soo celinayaa qof iyo cod waxa ilaahay u garto inuu ku soo celiyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa cod baas gareeyay xildhibaanada federaalka Soomaaliya cid ka hor imaan karta ama diidin karta ma jirto waxa la yaab ah madaxdii wadanka soo martay inay maanta burburin hayaan ama ka shaqayn hayaan inay Soomaaliya dawlad ka jirin inaan Soomaaliya sharci ka jirin inaan Soomaaliya waxba ka qabsan karin hadda been way caalamku wuu ogyahay waliya muuto waa diiday warka ay wadaan mucaaradka kuma shiri kartaan buu yiri way dawladdu waa si ixtiraama way xaq dhowraan taas waxay keentay in la isku yimaado ama maanta ay wafdigii hordhaca shalay ay tageen inay ku qulqulahayaan madaxdii hore dalka Soomaaliya oo ka mid yahay Shariif Sheekh Aadan Shariif waa nin culimo ah aabis waa nin culimo ah waa nin ahlu dariiqa ah waa nin muslim ah waa nin madaxweyne soo maray waxa la yaab ah waa madaxweynihii ugu horeeyay oo Soomaaliya ee dalkan doorasho ku qabto asagoo intaas ilaahay nimca siiyay wanaaga siiyay ayuu maanta wuxuu oranayaa magaalada Muqdisho amni kama jirto war Sheekh Shariif iimaanka Allah ku geliyo anuu baana sheegaysaa kuma dhihi karo kowdhi laakiin waa luntay niween hadduu lumana sooma noqdo xil dambe oo Soomaaliya way kaaga dhamaatay hay'aata lima tu'adun ilaahina kuma diidin dadka Soomaaliya kuma diidin afkaaga ku diidin waayo warkaad ku hadashay dadka Soomaaliya ma jeclaysanayaan runtii waxaan ku leeyahay galbatay Allah ku aruusho Dani Saciid Cabdullaahi Dani waa nin magaalada Muqdisho ku dhashay waa nin aqoon wax ku soo bartay waa nin maartay ganacsada ahaa waa nin madaxweyne laba jeer ka noqday Puntland hooyadii federaalka dad caqli leh ka soo jeeda laakiin maanta soo u lahay dadkiisa Puntland
bax iga tag asagaa soo hara asaga iyo ninkii la yidhaha caydiid wuxuu yidhi maxaaba noo haruura aniga adigaaba joognaba wasiirka arrimaha gudaha waa nin puntland ka soo jeeda taliyaha booliiska waa nin puntland ka soo jooga in adeerkiis madaxdii puntland aad joogta xisbiyadii puntland aad jooga ururadii puntland aad jooga wartaniyo maanta nin u xaraysan male dadku waa wada dhashay waa siman yihiin siyaasadda waa loo siman yahay maanta golayaashii gobolka banaadir oo la dooranayay 25 bisha cid kaa yeelayso puntland ma jirto kaarka codeynta ha qaadanina kaarka neer ha qaadanina waad luntay allah ku soo arus aad baan uga xumahay aad iyo aad baan uga xumahay waad siyaasaddaadu way gablantay waxaan ku leeyahay xamarna inaad timaado ha ka yaabin naftaadan ku ogolaanin wanaa la yidhi wadna maxaa la boodboodaysaa wuxuu yidhi waxaan la boodboodaa sanbab iyo feeraa iga xigo oo haddii toorey lagu soo dhifto horey daaqilka imaanay dee muqdisho miyaan wax ku dara karnaa muqdisho miyaan aamini karnaa dee annaguna ku aamini mayno oo jeerteenna xamray joogaan cismaan maxamuud baa jooga adaa waad galbatay allah ku haruurso waxaa soo haray madaxweyne farmaajo uu ka haray ama ka har ama ha ka harin farmaajo wuxuu ahaa madaxweynihii waddankan khatarta geliyay ilaahay baa ka badbaadiyey iyo rag isku kaashta waxa waa cid ku dooranaysa farmaajo ku jirto kuntaan kuu sheegaya waxa weeye ina cabdishakuur waxaa tahay nin aqoon le waxaa tahay nin aftahana waxaa tahay nin jaamacadda carabta ka soo shaqeeyey hay-ada dowliga u soo shaqeeyey xilal badan qabtay maxaa ku dilahaya afkaaga isku disho afloolataa leeda afloolato haa waxaa u sababeynayaa inay siyaasaddaada baaba' tahay wiilashii adiga godka kuu galay kobahooda lagu duugay ku difaacayey ee maanta inaad noo sheegtay xag ilaahayaad ka nooshahaye sababta u aha xaqoodii iyo owlaaddoodii meel kuma sheegto $1 kuma aadan bixin see masiir soomaaliya lagugu aaminaa dadka xoola miya war guricaa laguguma aamini kara xaqiiqan aniga kuma dhibci xasadka uma ihi weli waxaan jeclaan lahaa inaad waddankan madaxweyne ka noqoto laakiin adaa halkaas ku dhuftay taasaad ku sheegtay aniga waxaan dhihi lahay ragga maanta ush ku shiraya ama u socda waxaa leeyahay golaha maanlaawayaasha soomaaliya ayaa waxay ku shirayaan magaalada kismaayo ayagoo ka shiraya siday sharaftooda iyo karamadooda u dhumi lahaayeen waana idinkaga tacsiyeynaya runtii karaama xumada sharaf xumada idinku dhacday axmed madoobe oo la aqoonsanayn oo maaragtay asaga isku caana shubay inaad hoos tagtaan man anta muxuu ahay axmed madoobe waa nin muslina oo sunniya oo markii dambena shabaab noqday shabaab heshiis la galay sanada xakuma waa uga dhegsadeen axmed madoobe nin xukun jecel waa ka baxa wixii dhan wuxuu tagay kenya ciidan ku soo qaaday wuxuu qabsaday kismaayo ilaa hadda xooggii ku haystaa yaa aaminahaya ciidamadii xoogga dalka soomaaliya u dhaartay geesiyaashii danab ayaad ciidan kale ku dalbatay oo maleeshiya qabiil ah iyo jubbaland ka tirsan waad isku dhamaysay raas kamboni waad nacaabaysay in 2 nin oo soomaaliya ee diris hugan ciidan ah ay isdilaan axmed madoobe ayaa sabab u ah axmed madoobe halkaas xukun ku sheegay maamul goboleed mid kale horta haba sheeginba hay haatay kaate waxa weeye soomaalidu waxay tiraahdaa adimadaadana runay kuu sheegaan hawadaadana been bay kuu sheegaan raggaas runtii samata bixin ma dhihi karno ayagaa caymis u baahan ayagaa in lala xisaabtamo u baahan shacabka soomaaliya maanta waxay ka dheragsan yihiin waxa aad tihiin maanta ninka odhanhaya muqdisho nabad ma ah waa nin raba soomaaliya oo dhan inaysan jirinba oo saaxadda siyaasadda ka baxdo oo saaxadda caalamka ay ka baxdo ninka dhahaya muqdisho maan aamini karnaa hadda dana aabihiis iyo hooyadiisna ma aamini karo maantana puntland xoog buu ku hesiiya qori iyo caaradiis wuxuuna jiftaa saldhig ciidamo ay leeyihiin waxa weeye dadka noocaasa cidda taageeraysa ayaa ka liidata waxaana leeyahay samir iyo iimaan allaha naga siiyo sheekh shariif deni axmed madoobe ina cabdishakuur way dhinteen dhimashadu maahan inay god lagu geliyo laakiin siyaasadooda ayaa dhimatay ayaga isku jabiyey xasan sheekh maxamed maanta bannaan ku yaala urura siyaasadeeda jooga xisbiyaa loo tartamaya rag baa la tartami doona nasiibkiisuu qabaa asagana laakiin wuxuu wadaa ololo weyn xasan intuu kursiga ku fadhiyo wuxuu mudan yahay ixtiraam wuxuu mudan yahay in la dhegeysto
xumadayaan wixii tabashaa in looga tago waana nin ogol laakiin in la burburiyo dowladdii maxay dhexlayaan haddii xasan maanta dibindaabiyayaan ee dowladdii falxumeeyaan ee beri ay ku guulaystaan maxay sheegayaan waa shan sanaba meesheeda joog waa jugjug meesheeda jooga tiraa soomaalida nimankaasi way gablameen way saqiireen siyaasadda saaxaddana way ka baxeen adduunka caalamka waxaa u dambeeyey dowladda Kenya ninkii la tartamaya uu dhintay laakiin markii laga guulaysto uu ka tegey madaxweynihii xilkan markuu wareejiyey siyaasadda dhan waa iskaga haray tee waxaa rabaa mar haddaad hawl qabato ama ku guulayso inaad ka tagto qofka fursad siiso madaxweynaha Mareykanka markii laga guulaysto uu ka tegey jaanis uu siiya dadka jaanis siiya madax Soomaaliyeed jirto idinka aqoon badan idinka caqli badan idinka siyaasad badan ayagaasaa loo deynaya waxaa rabaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee hay'adaha amniga garsoorka booliiska nabad sugidda runtii wax fiican baad qabateen nabadgelya magaalada Muqdisho ka dhigteen shacabka magaalada Muqdisho dhalinyarada haweenka ganacsatada aqoon-yahanka iyo salaadiinta idinku garab siisay dadka Soomaaliyeed ee Donald Trump uu yiri Soomaaliya waqashin xamar bay u soo socdaan dadkaas indhooda inay hub qabtaan lama ogola inta aad arkayso hubna waa laga qurux badan yahay waxaa rabaa amniga maanta meeshu jooga meel ka fiican inaad geysaan xamarna safwi warkayga intaasaan kusoo gabagabaynayaa wixii aan qaldana fi shaydaan baa leh wixii aan wanaajina ilaahay boqorka uga xamdina qiya jalla wa jalaaluhu anoo ah suldaankii Soomaaliyeed suldaan maxamed suldaan cigalle suldaan hooley dictor qaanuuni waa talada u soo jeedinayo ummadda Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq